الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. إلهي سبحانه وتعالى dadka wuu kala fadilay, dadka barwaaqooyinkiisa iyo cilmooyinkiisa ayuu ku kala fadilay. qof ilaahay subxaanahu wa tacaala cilmi buu siiyey, qof ilaahay subxaanahu wa tacaala cibaadada ayuu u fuudeeyey, qof ilaahay subxaanahu wa tacaala cibaadadii ayaa loo kala fuudeeyey. haddana dadka qaar ayaa waxaa loo fuudeeyey salaada, qaarna waxaa loo fuudeeyey qur-aanka, qaarna waxaa loo fuudeeyey soonka, qaarna waxaa loo fuudeeyey aljihaad fii sabiilillah, qaarna waxaa loo fuudeeyey cilmiga, qaarna waxaa loo fuudeeyey makaarimul akhlaaq. maanta waxaynu baranaynaa sifo ka mid ah sifooyinka ugu waaweyn ee lagu kasbado makaarimul akhlaaq. qofku hadduu la yimaado sifada oo uu ku sifaysnaanayo insha allahu tacaala wax loo yaqaano makaarimul akhlaaq. makaarimul akhlaaqna waxa weeye waa wax aad iyo aad u weyn, shay ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aanka kuma faaniyo ilaa ilaahay agtiisa shaygaas uu ka wan yahay. wa innaka calaa khuluqin mubiin, wa innaka la calaa khuluqin cadiim. markuu leeyahay ilaahay subxaanahu wa tacaala nabiga sallallahu calayhi wasallam, adigu waxaa ku sugan tahay nebi allow sallallahu calayhi wasallam akhlaaq wanaagsan. oo nebiga sallallahu calayhi wasallam intaan la soo saarin 40 sano oo aan la soo saarin oo aan diinta lagu soo dejin, waxaa ogaataan wax kale kamuu shidaal dhiganayn. caddaynta uu haystay uu hadhow dhihi doono anigu nebi ayaan ahay, waxaa ii caddeynaa sidaa iyo sidaa oo ka mid ahayd caddeemaha, waxaa ka mid ahayd makaarimul akhlaaq waxdaha faqad. akhlaaqda wanaagsan oo keliya ayaa caddeyn u ahayd nebiga sallallahu calayhi wasallam. oo markii la soo saaray wuxuu ku yiri war aniga miyayna garanayn oo maalintii lagu yiri dhawaaq oo dadka khayrka u sheeg, oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku yiri dacwada shaaca ka qaad, markuu qayliyey uu sukeenay uu buur dhakadii fuulay, waatuu ku yiri haddaan idinku dhaho ciidan baa buurta gadaasheeda soo socda oo doonayay inay idin laayaan, may rumaysanaysaan? waxay yiraahdeen maa jarramnaa calayka kadiban, wax been ah kugumaan aqoon, been iyo waxyaabahaas kugumaan aqoon. maxaa yeelay akhlaaqdiisu nebiga sallallahu calayhi wasallam way wanaagsaneed. markaana nebiga sallallahu calayhi wasallam wuxuu ka shidaal dhigan jiray ama dalaa'il u ahayd inuu nebi maxamed sallallahu calayhi wasallam uu nebi yahay, waxay ahayd makaarimul akhlaaq. intaas ayaa inagu filan, fadligeeda intaas ayaa inagu filan. maa wahaba allahu liimri'in hibatan afdalu min caqlihi wa min adabihi huma jamaalu lfataa fain fuqida faqduhu lilxayaati ajmalu bihi. nin shaacira oo gabya ah ayaa wuxuu leeyahay ilaahay subxaanahu wa tacaala qof muusiin wax ka fadli badan caqli iyo akhlaaq wanaagsan. labadaas qofka dhalinyarada waxay u yihiin jamaal, qurux ayay u yihiin. waayitaankiisa inuu labada waayo waxaa weeye inuu waxaa u fadli badan ama u khayr badan inuu nolosha waayo oo uu iska dhinto ayaa u wacan, ayuu leeyahay ninka shaacirka ah. marka walaalayaal, sideedaba jamaal ayaa jira, jamaalu baatin wa jamaalu daahir. qofku macnaha dadka hadeer jooga maanta waxay ku fakaraan inay isqurxiyaan oo macnaha dhar wanaagsan ay xidhaan, oo ay in badan kareemo iyo waxyaalo ay isku nadiifinayaan oo ay isku qurxinayaan ay isticmaalaan, laakiinse kama fakaraan jamaalka qalbiga ah waa maxay, wal jamaalul akhlaaq waa maxay. hadalka wanaagsan waa qurux, oo socodka wanaagsan waa qurux, oo nadarka iyo eegmada wanaagsan waa qurux, oo tawaaduca iyo raxmadu qofka inaa u naxariisatid waa qurux. waxaas oo dhan waa qurux. markaana waxaa ku wacan haddii aad taa raadinayn in aad iska dhimatid ayaa ku wacan, ayuu leeyahay ninkaasu. maxaa yeelay sideeduba naftu waa sida gidaarkaas oo kale, naftu sida gidaarkaas oo kale weeye. gidaarkaas hadeer isaga oo uu marsan yahay rinji buluuga ayaa waxaa la marinayaa rinji madow baa la marinayaa. hadhow rinjigii buluuga haasaas ku tagay, maxaa la mariyey? rinji madow baa la mariyey. ama rinjigii madowga waxaa la marinayaa mid casaana, isla markiiba madowgii wuu ku ba'ayaa. marka naftu sidaas oo kale ayaa wax loo baraa. qofku akhlaaq xun aaduu ku sifaysan yahay uu baro akhlaaqda wanaagsan, naftaasu waa sida gidaarkaas oo kale way qaadanaysaa
way qaadanaysayo haysdhihin adigu naftan qaadan mayso wanaaga iyo akhlaaqda wanaagsan in la baro haysdhihin qaadan mayso maxaa yeelay naftu waa sida gidaarkaas oo kale laakiin waxaa la doonayaa dadaal yar aad samayso dadaal yar samee dhaqdhaqaaji maalin dheeli in dadaala samee maalin dheeli in tababar la imo tababarkaas ayaa kuu kordhaya ilaa uu ku gaarsiiyo inaad insha allahu tacaala akhlaaqda kuugu wanaagsan ku sifaysnaato marka baabkeeni iyo mawduuceeni aynu marnay waxaa weeye sida loo kasbado akhlaaqda iyo sida loo kasbado xishoodka ayuu ahaa baabkeenu xishoodka sidee baynu ku yeelanaa insha allahu tacaala waxaynu soo qaadanay 7 waxyaabood ama 7 waxyaabood ayaynu soo qaadanay oo qofku uu doonayo in hadii uu doonayo in uu kasbado waxa la dhaho xishood in uu 7 waxyaabood la yimaado ayaa la doonaya xishoodkuna wuu gudub bilaaran yahay ki ilaahay baa ku jira oo ilaahay subxaanahu wa ta'ala inaad ka xishootid oo bilaadanka inaad ka xishootid oo naftaadana inaad u xishootid oo naftaada meel wanaagsan inaad dhigtid yaduna way ku jirtaa xishoodyadu aad ayay u farbadan hadaynu kusii jirno casharkeeni insha allahu tacaala wali inaga muu dhamaan ilaa sifooyin farbadan ayaa inoo haray waxyaalo farbadan ilaa 25 meelahaas bay gaarayaan 20 meelahaas ayaa inoo haray insha allahu tacaala intaas oo dhan iyo qodobadaas oo dhan waynu dul istaagana waynu dhameynaa sidaynu u ogaano bal xishoodka bas ayaa wuxuu inooga baahan yahay intaas oo dariiq inay fulino aynu marno oo ayna sahleen akhlaaqda wanaagsan iyo xishood in lagu sifaysnaado taxari alxalaala fi ma'kalika wa mashrabik wa fi kulli mu'amalatik wuxuu leeyahay sheekhanu waxaad ku dadaashaa xalaasha inaad cuntid ku dadaal fi ma'kalik cuntadaada oo mashrabik iyo waxaad cabayso waxaad cunayso iyo waxaad cabaysaba labaduba xalaal ha noqdeen oo waxaad noqotaa qof xalaasha mirta oo xalaasha cuna oo fi kulli mu'amalatika xitaa mu'amalaadka oo dhan xalaasha ku dadaal wax xalaala ma ahaanay wax kale ha qaadan wax xalaala ma ahaanay wax kale ha sameyn wax xalaala ma ahaanay wax kale ha eegin wax xalaala ma ahaanay wax kale ha ordin markana waxa la doonayaa in akhlaaqda la wanaajiyo oo mu'amalada dadka aad la mu'amaladoosid oo aad wanaajisid oo aad dhigtid naftaada iyo badnigaaga iyo calooshaada waxa wacan wayna dhigtid sidaas oo kale nabi sallallahu alayhi wasallam watuu ku lahaa waxa ka xishootaan ilaahay subhanahu wa ta'ala xaq xayaa'i xaq ugu wanaagsan ka xishooda ama xishoodka uu xaq u leeyahay ka xishooda watuu asxaabta ku lahaa asxaabtu watay lahaayeen nabi allow anu waan ku xishoonay ilaahay subhanahu wa ta'ala xishoodku maaha sidaas maxaa ku jiray waxa ku jiray in ay ilaalisan caloosha iyo wixii u dhaxeeya ma bayna alfarji walbad intaas oo dhan inaad macnaha ilaalisan farjiga iyo caloosha inta u dhaxeysa caloosha iyo wixii gala adigu waxyaalahaas ayuu nabiga sallallahu alayhi wasallam ka sheekay oo waxaad cunaysid iyo waxa cabaysid ee aad calooshaada gelinaysid in aad iska ilaalisid inaad ka dhigtid wax xaraan ah oo inaad ka dhigtid waxaad cabaysid iyo waxaad cunaysid wax xalaal ah inaad ka dhigtid ayuu nabiga sallallahu alayhi wasallam xaq xayaa ilaah subhanahu wa ta'ala uu ku tiriyay adigu almuhim in aad xalaal miiratid oo wax xalaal aad cuntid adigay taasuna faa'iido ku tahay taasuna waxay keenaysaa in aad tahay qof xishood badan oo xishood ay ku geenayso hadii aad xalaasha cuntid oo aad noqonayso qof xishood badan insha Allah ta'ala akthir min dhikri al-maut fi al-yawmi wal-layla waxaad badisaa ayuu ku leeyahay sheekhanu hadii aad doonaysid inaad xayaa iyo xishood ku sifaysnaatid mawdka iyo geeriga badi xasuushadiisa badi nabi sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri badiya xasuushadiisa هذه اللذات كان ددومية بربرية بابية معمعانك الدنيا ده كبابية أيو يرى النبي صلى الله عليه وسلم حسوس الصلاة قفكي حسوس تجيري بحاذو قاتان إنو أدونك أورن وهالمر ونعيو معمعان أدونك أورن ويالا أورن وكسكسه ريستاغيا وحي خيرات قايو دونايا إلهي سبحانه وتعالى وقحشونيا تن فيدا نقوين
oo inaad ka xishootid ilaahay subxaanahu watacaala ayay soo gelaysayo habeen dheeli haddaad ilaahay subxaanahu watacaala geeridiisa iyo geerida uu kugu sababayo ama uu kugu sameynayo waqtigaagu markuu dhammaado haddii aad badisid in ilaahay subxaanahu watacaala uu ku naxariisanayo oo aad noqonaysid qof wanaagsan oo is ilaaliyey qof geerida xasuusanna maba dambaababa taas waa caan waa la yaqaanaa haddii aad habeen iyo maalin geeri xasuusan tahay agtaada dunuub iyo macaasi way ka fog yihiin taas horaa loo sheegay marka haddaad doonaysid dunuub iyo macaasi inaad ka fogaatid waxaan geeri ahayn ha xasuusan haddaad doontid qubuuraha toddobaadkii in badan soo booqo sababtoo haddii aad soo booqatid dee qalbigaagu wuu qoyayaa markaana waxaa la dhahaa oo kale qofka geerida xasuusnaantiisa badiya lama xaasido ayaa la dhahaa lama xaasido haddii geerida xasuusnaantiisa aad badisid waxaa ogaataa in aanan lagu xaasidi karin maxaa yeelay waxaa tahay qof ilaahay ku mashquulsan qof diinta ku mashquulsan qof camal ku mashquulsan ayaa tahay qofku waxaa ogaataan cadowga ugu daran aad leedahay in aad kaga guulaysanayso diinta ilaahay subxaanahu watacaala inaad ku dhaqantid cadowgaagu hadduu doono gaalo ahaado hadduu doono kuwa islaamo cadow kaa dhigtay ha ahaadaan haddaad doonaysid quwa cadiima aad ku jabisid iyo husuum cadiim jabin weyn inaad ku dhigtid mid baa la imanaysaa dariiqa ilaahay subxaanahu watacaala ku toosnow haddii aad dariiqa ku toosnaatid ilaahay subxaanahu watacaala xasuusada geerida aad badisid kaannaka laa takuunu mashquulan fii maa yafcalu maxaa yeelay kuma mashquulaysid wuxuu uu sameynayo oo xaasnimada goome qofka wax ka tartaa markaad ku mashquulshid hebel baa xaasida iyo hebel baa sidana markaa ku wareegtid nacam xaqaaga ka sheekee marmar ka sheekee laakiin mashquulkaaga iyo noloshaadu ha ahaado inaa ilaahay subxaanahu watacaala diintiisa ku camalfasid oo ay iyadu kuu weynaato ayna kuu weynaan dhibaato iyo waxyaalahaas xasin mucaamalaataka maca annaas sheekhan wuxuu leeyahay qodobka tobanaad ee haddii aad doonaysid inaad ku sifaysnaatid ama aad kasbatid sifada loo yaqaano xayaa haddii aad doonaysid sifada inaad ku sifaysnaatid wuxuu inoo sheegayaa sheekhan qodobka tobanaad oo ah in aad dadka mucaamalo wanaagsan kula dhaqantid dadka mucaamalo wanaagsan tus oo mucaamalooyinka aad dadka la leedahay macnaha wanaaji oo hagaaji waxaad ogaataa marka lagu dhaho dadka mucaamaladooda wanaaji hamoodin in lagu dhahayo dadka oo dhan camalka intaad macnaha kuwa far badan baa laga yaabaa inay ka fakaraan oo dadka intaa leeg baa anuu intaan dhex galo aan mid kastaba camalkiisa akhlaaqdiisa ama mucaamaladiisa ama la shaqayntiisa hagaajin karaa may adigu haas programmin waxyaalo kale haas ku programmin oo maalintii waxaa laga yaabaa dhowr qof kaliya inaad la hadasho aad la sheekaysato aad la kulanto khasab maaha inaad ummadda oo dhan la kulanto bal iska badaayo ummadda waxaa laga yaabaa boqolkiiba wan inaad istaqaanaan inta kale ee inays aqoon aad waddada kala martaan markaanu adigu intaa yar aad la kulmaso dhaqanka iyo mucaamalada wanaagsan aad la leedahay u hagaaji bis intaasaa lagaa rabaa marka intaasuna waxay u dhigmataa adigoo dad kale wanaag kula dhaqmay ayay u dhigantaa waxaa la dhahaa ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu yidhi qofkii nafti leh waxa weeye waa isagoo dadkao dhan dilay nafafyoo dhan waa isagoo dilay waman axyaaha faqad axya annaasa jamiica qofkii naf nooleeyana waxay ka dhigan tahay adigoo nafafta dhan nooleeyey halkaas sir baa ku jirta sirta ku jirta waxaa weeye adigu qofkan sidaa kula dhaqantid iyo qofka kale saaxiibka ah iyo qofka kale dariska ah iyo qof kale magaalada joogo aad isku aragtaan sidaa kula dhaqantid ayaa dadka kale kula dhaqmaysaa taas waa caan waa la yaqaanaa haddii aad qofkan aan waxba kuu sameynay saaxiibkaaya ama qofka kale iska caadiga istaqaanaan haddii aad kala dareysatid waxa doonto kuma samaysid waxaa ogaataa ummadda kalena saasaad ku ahaanaysaa wey haddii aad qof dishid qofkii qof dilana ummaddii oo dhan buu laayay ummaddii wuxuu baray in wax la dilo qof kale wuu dilayaa oo qof kale dee waxbana maaha naf kama weyna wuu dilayaa qof kale markay iskhilaafaan wax isku qabsadaan qofkii qof le nooleeya ee si wacan u macsuumay si wacan u galana waxa weeye ummadda kalena wuu nooleynaya maxaa yeelay ummaddu dadku waa isku wada mid caadi ahaan markana waa sidaas ayaa la dhahayo dadka waxaad u hagaajisaa mucaamalaadkaaga
ilaahay oo haday doonaan mucaamalada adiga ay kula leeyihiin ilaahay oo haday doonaan xumeynayaan waxaa jira akhlaaqdan aynu ka sheekeynayno iyo xishoodkan ay ka sheekeynayno qofka nolosha ayay u kordhisaa nolosha ayay ku siyaadinaysaa nolosha ayay barwaaqiyo bashbash kaaga dhigaysaa markaana waxaa ogaataa haddii xitaa akhlaaq wanaagsan qofkii wax kuu sameeyo aad kula dhaqmisid waxaa ogaataa adiga noloshaadu in ay toosan tahay ilaahay oo hadduu doono isagoo wuxuu doono iska galo waxba kaama gedin I don't care laakiin adigu noloshaada iyo qalbigaaga u kari qalbigaaga iyo noloshaada u danay oo waxaad tiraahdaa billions of Islam billions of people haday ku dhimaan waxa ku tiraahdaa indhu hadaa xumaanteeda ka shaqeystaan anigu wanaagiina ayaan ka shaqeynaya maxaa yeelay waxa uu wada joogtaan waa ayaamo qaliila ayaa wada joogtaan waxaas la kulantaana waa in yar markaana saas ayaa ku dadaalaysaa sidaas ayaa ku dadaalaysaa lambar 2 lambar 11 istashcir hawaana dunya cinda siyaadati almarid halkan waa qodob ugu muhiim ah waxa weeye wuxuu leeyahay sheekhanu waxaad dareentaa hawaanu dunya noloshan yaraanteeda iyo dulinimadeeda iyo in ay waxba ahayn dareen oo istrensi cinda siyaadati almarid markuu sii siyaado xanuunkaagu markuu siyaado oo maalinba uu sii siyaado oo si weyn lagu qabto waxa istrensiisaa adduunkan inuu waxba ahayn sababtoo waxa laga yaabaa in adduunka ka tagtid haddii aad adduunka ka fakartid oo aad in adduunka ka tagasid oo macnuhu leeyahay iyo inay wax ka kala dhinaayeen iyo raaxadiisa iyo waxaad si xasuusid waxa laga yaabaa toobaxumo inaad ku dhimato khaatimatu suu adoo adduunyadii ka shaqeynayo jecel oo hadal hayo inaad dhimato laga yaabaa oo shahaadan weyd maxaa yeelay haddii ay shahaadatid ahlu janna tahay Soomaa markaana عند الموت نبي صلى الله عليه وسلم واتول لها لقنوا موتاكم شهادة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحا ألقنتان كينا دمانيا شهادة ألقما مركانا هدي هاد شهادة ويدي دي شهادة ويد 10 بان كجرا أرض بح أورا 10 بان كجرا يبح مركانا waxa weeye waa sidaas waa adduunyada marka ka sii tagaysid bay ka mid tahay macnaha baa laga wadaayo de marka aad xanuunkaagu sii siyaado waxa laga baqayaa inaad dhimatid marka xiligaas waxaad ka fikirtaa diintaada iyo aakhiradaada ka fikir talabiyo tomanaad insha Allah ta'ala ala almar'ati almuslima tartadi alhijab waa tan qodobka ugu muhiimsan ee waliba akhlaaq weyn soo jiida way hadaa si waxaan u adeegsatid si xun hadaa u adeegsatidna akhlaaqda kuwa ugu xun ku soo jiidaya lambar 12 waxa weeye ala almar'ati almuslima gabadha muslimada in ay xirato xijaabka gabadha muslimada xijaabka iska xiro bis xijaabka iska xiro iyo niqaabkaba iska xiro intaas kugu filan akhlaaqda kana waa in yaro ku hadhay iska samee gabadha iska xiro xijaabka iska xiro xijaabku waa cawro xijaabku faa'iido weyn buu leeyahay saasoo kale maalin baa nin kale wuxuu weydiiyay uu ku yiri niyow buu yiri gabdhuhu maxay jirkooda dhan u asturaan indhaqaabkii xijaabkii sharabaadadii gacmihii waxaas oo dhan maxay u asturayaan buu yiri markaan dhalinyarada badanaba waa in la fahansiiyo macnaha jirka gabdhaha iyo in ay jirkooda asturaan in ay tahay wax weyn oo qiimo badan in la fahansiiyo weey waxa laga yaabaa marar badan inay arkaan weyba jirtaa waa caanba in ay ku weydiiyaan gabadhan maxaa maryahan loo saaray oo ay si isugu gelaysaa oo ay wax culays isku saaraysaa kada takale inay dhahdo maxaa anigu xijaab ka gashanaya waa culayse waa kuleyle oo hadaba ninba maalin wuxuu weydiiyay nin oo wuxuu ku yiri gabdhuhu maxay meel kastaba la asturaan ii sheeg wuxuu ku jawaabay uu ku yiri niyow su'aal baan ku weydiinayaa buu yiri iweydii gabadha iyo wiilku markay isqabaan labada xas markay isqabaan oo ay gurigooda ku wada shaqeysanayaan oo ay jimaaci iyo galmadii xalaasha ay sameeyaan oo de labadoodu oo wuxuu Ilaahay subhanahu wa ta'ala isku baneeyay ay ku hoos jiraan ninku gabadha
meel kastaba soo kama dhunkado siiraha meel kastaba ka dhunkadaa gacmaha wuu ka dhunkadaa soo ma lugaha wuu ka dhunkadaa soo ma wejiga wuu ka dhunkadaa soo ma meel kastaba oo jidhkeeda ku saabsan wuu ka dhunkadaa ha sababtu gacmaha uu ka dhunkanayo waa maxay xitaa qaar baa laga yaabaa inay cidiyaha ka dhunkadaan soo ma sabab buu ku yiri siiro sababta waxa weeye uu ku raaxaysanaya hadaba ogow buu ku jira hadaba ogow meesha lagu raaxaysto waa meel u baahan in la asturo waa ceeb maadaama ay gashay in lagu raaxaysto oo la dhunkado waa in la asturaa sideena nimanka shahwadoodu u kicin markaan ogow gabdhuhu ama gabadhu iyadoo dhan baa wada dahaba iyadoo dhan ayaa wada qaaliya iyadoo dhan ayaa wada raaxa lugteeda iyo gacanteeda iyo meelaha kale ay ragu jecel yihiin ee ku raaxaystaan ee ka dhunkadaan ee ka istimtaacaan ee kaga raaxaystaan waa iskooda mid isku sibay u isticmaalaan halkan way dhukanayaan halkan way dhukanayaan maxay kula duwan yihiin waxba meesha gabdhuhu qarinayaan adigu leedahay gabdhuhu ha qariyeen halkan ay qarin halka waa dhukataa halkana waa ka dhukataa maxay kula duwan yihiin halkana waa kaga raaxaystaa halkana waa kaga raaxaystaa ogow ma garatay markaan almuhim waxaan ka wadnaa gabadhu waxay jidhkeeda u qarinayso iyadoo dhan baa waxay tahay